waxaa magaalada Beledweyne maanta laga daafuray carwada qalabka guryaha ee Bashaash Beledweyne. Shirkadan cusub ee Bashaash Beledweyne oo noqon doonta shirkadda ugu weyn ee keenta qalabka guryaha waxaa maalgashtay gabdho Soomaaliyeed. Carwadan cusub oo iibin doonta qalabka guryaha sida jiifka casriga ah ee dibadda laga keeno, fadhiyada, boqorka, sariiraha carruurta iyo guud ahaan qalabka guryaha. Furitaanka carwada waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan, ganacsato qeybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Maxamed Ibraahim ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xaruntan. Mas'uuliyiintii ka qayb galay ayaa soo dhaweeyay hal abuurka ay sameynayaan gabdhahan Soomaaliyeed. gabdhaha furtay carwadan quruxda badan ee laga furay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne sida quruxda badan ay u diyaariyeen wanaaga badan ee sharafta badan ay ku soo kordhiyeen magaalada Beledweyne alaab original ah ee laga keenay dalka dibadiisa iskuna kaashadeen dhamaantood gabdhahan in ay magaalada bilicda iyo horumarka ay ku kordhiyaan isku kaashadeen. waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin, waaye aad u dadaasheen, shaqo fiican qabateen, magaaladana waxa ku soo kordhiseen bilic oo aan horay magaalada looga aqoonin. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. mid kale waxaan dhihi lahaa inuu Ilaahay idin barakeeyo oo wax barakada idinka siiyo. joognaa xafladii xarig jarka carwadan quruxda badan, carwo Bashaash. waxaan u maleynayaa magaalada wax badan inay ka bedeli doonto. si qurux badan ayaa loo qalabeeyay, qalab waxa laga keenay dibadda. waxaad arkaysaa waqti badan in lagu bixiyay, dad iskaashtay, gabdho iskaashtay oo jecel degmada horumarkeeda ee gobolka Hiiraan iyo dadka inay wax ku kordhiyaan ayaa intaas sameeyay. carwo Bashaash Beledweyne oo laga furay xaafadda Xawtaako, qaybta laanta ay ku leedahay Buulxabley. carwadan carwo weligay aniga kolayta Beledweyne aan ku dhashtay, carwadan oo kale wali ma aan arkin. waa carwo igu cusub oo Beledweyne laga furay, waa carwada ugu horeysay ugu qurux badneed. agabkan oo kale waxaan ka doona jirnay magaalada Muqdisho ama Boosaasan ka doona jirnay. Ilaahay baa mahad iska leh, alxamdulillah. Luul Nuur Jaamac iyo Aamina Aadan Bagaf oo ka mid ah milkiilayaasha shirkadda ayaa sheegay in carwadan ay u baahnayeen dadka reer Beledweyne ayna keeneen qalabyo kala duwan oo guryaha ah, sidoo kalena qalabka ay ka keenaan shirkado ku yaala wadanka dibadiisa. kusoo dhawaada agabka yaalo waa bartaan disaynada kala duwan iyo farka kala duwan, fadhiyaasha kala duwan, qalabada sariiraha ilmaha, miisaska jiifiga, armaajada maacuunta, mid sare iyo maadaama aan maalgashayaasha ka mid ahay anigoo Aamina Aadan Bagaf ah, waxaan si xushmad leh idinku yeeray oo idin wacday inaad daafurkii iyo jarkii carwada aad nala xariir jartaan. carwadaanoo magaalada u baahnayd, dad badan alaabtan ay raadin jireen, baabuur la saari jiray, alaabta soo jijabi jirtay, dhibaatooyin badan lagu qabay. haddana aan si toos ah ilaa Turkiya ilaa China aan uga dalbay alaabtan aan kor ka keensannay. alxamdulillah, shukur baa Ilaahay baa ku mahadsan. baahida magaalada taalan aad u fiiriyay, wax badan bay ku soo noqnoqotay. marka gabdho badan oo gruub ahaan nahay, maasha Allah, maskaxdiyo maal baan ku shiilnay. ilaaha ku mahadsan. welcome, soo dhawaada idin leenahay. gobolka Hiiraan ka furan tahay, qaasatan degmada Beledweyne, xaafadda Xawtaako, jeerada Jaaburi. waxa waaye la soo diyaar garoobo wax alla wixii diyaar ahaa iyo wixii dhex ku soo jiray iyo wixii wax rabay waa in la yimaado meeshaan. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, Muqdisho.